meeqa GB ayaa u baahan tahay inaan kuu soo diro? Waxaa kuu soo haray 6 MB. Mobilkaada memorygiisa waa meeqa GB? MB, KB, GB, TB, xarfahaas wax badan ayaa maqlay haddaad soo gasho caalamka tiknooloojiga. Marka ma taqaanaa waxa laga wado? marka hore intaan kuu qeexin waxa laga wado xarfahani MB, KB iyo GB iyo TB, waxaa muhiim ah inaan fahamno sida kombiyuutarka u keediyo daatada ama xogta ama macluumaadka. shaqo walba oo ka dhaxaysa kombiyuutarka wuxuu maraa nidaam la dhaho binary system, kaasoo ku shaqeeya kaliya eber iyo hal. micnaha wax walba kombiyuutarka ka dhacayo wuxuu ku shaqeynayaa eber iyo hal. hadda halahan ila fahamtay hore ay u soconayna. marka tusaale ahaan ayaan ku siinaya. hadda waxaa haysataa memory ama hard disk. memory hard disk waxaa la dhahaa wax walba wax lagu keediyo oo faaruq ah ayaan haysanaa oo wax dhan ku jirin. marka hadda memorygana faaruqa ah ma dhahayno waa faaruq. haddaan joogno caalamka kombiyuutarka waxaan ku hadlaynaa luqad number kaliya. waxaan dhahaynaa waa 0 ama waa eber ayaan dhiganaynaa oo number ah. laakiin hadduu wax ku jiro luqadda ay isticmaalayno oo wax ku keedinayo wuxuu noqonayaa eber iyo hal. sug wili warkii waadix ma ahan sax? sug marka tusaale kalaan ku siinayaa. degdegin ka soo qaad. sokorta marka la cabirayo waxaa lagu cabiraa kiilo iyo nus kiilo iyo rubuc. sidoo kale halbeega lagu cabiro soorta iyo cambuulada marka la cabirayo iyaduna waa madaal iyo mas iyo butaco iyo yoog. way kala yaryar yihiin sax? madaal markuu weyn yahay waaye, masna markii kaleenta dhexdhexaadka uu yahay, kan ka sii yarna butaco, kan kaleentana yooga allaha. marka sidoo kale cabiraada kombiyuutarka uu adeegsadan asna waa bit iyo byte iyo megabyte iyo gigabyte. megabyte waxaan ka wadaa MB iyo gigabyte waxaan ka wadaa GB. marka hore waxaan ku soo dhahay kombiyuutarka wuxuu wax ku keediyaa eber iyo hal. marka waxaas waxaa loo yaqaanaa bit, waxayna ka kooban tahay 8 qaanad. qaanad walbana waxay noqonay hal. haddiisan hal noqonin 0 ayay noqonay ama eber. labadood mid le ay noqonay. marka eber iyo hal waxaa loo adeegsadaa in lagu keedsado macluumaadka sida qoraalada iyo fiidiyowyada iyo nashiidooyinka iyo sawirada. marka 8 bit waxay la eg tahay 1 byte. halka byte micnaha ma awoodi karo inuu keediyo wax ka badan hal xaraf. marka haddaa rabto inaad qorto dukumeenti ka kooban 1000 xarfo waxaa u baahan tahay wax ka badan 1 byte. marka waxaa u tegaynaa inaa badino halkaas byte. waxaan dhehna marka 1024 bytes waxay la eg tahay 1 kilobyte oo laga soo gaabiyo KB. marka halkii KB ma ku keedin karo wax ka badan 1 page. marka waxaa u tegaynaa inaan ziyaadino helno wax ka weyn 1 KB. marka 1 KB waxaa ka weyn 1 megabyte. marka 1 megabyte wuxuu la eg yahay 1024 oo kilobyte. marka waxaa ku keedsan kartaa halkaas megabyte 2 buug iyo 1 sawir iyo 1 minute oo nashiida ah. marka hadda waxaan rabnaa 2 buug kaliya ma rabno inaan wax ku keedsan iyo 1 sawir iyo 1 minute oo nashiida ma u baahan. wax ka badan u baahanahay. marka hadda waxaan u baahanahay 1 MB wax ka weyn u baahanahay. hadhow si malfaad badan iyo dokumenti badan u gashan oo buugaag badan iyo sawiro badan iyo minutyo badan oo nashiidooyin ah inaa gashan u baahanahay. marka waxaan u tegaynaa 1024 MB waxay la eg tahay 1 gigabyte oo laga soo gaabiyey GB. marka halkii GB waxaa ku keedsan kartaa ku dhawaad 400 buug iyo 1000 sawir iyo 16 saacadood oo nashiido ama quraan ah. marka waxaan rabaa kor inaan u socdo waxaan u baahnaa GB wax ka weyn inaan adeegsado. marka 1024 GB wuxuu la eg yahay 1 terabyte oo laga soo gaabiyo asina TEB. wayna kugu filan tahay inaad ku keedsato 400,000 oo buug iyo milyan oo sawir ah iyo 2 sano quraan iyo nashiido oo iska soconaysa la kaliya. marka hadda ma ila fahamtay xarfahaasi meesha ay ka imaadeen iyo wax loola jeedo? maanta kadib haddaa aragto ama kugu noqon wax cusub. barnaamijkeena maanta halkaan aan ku adkeynaynaa. balanteena waa qayb dambe insha Allah.